Waan ku salaamay daawada kusoo dhow barnaamijkeena maalin kasta oo Arbacaan ka hadli jirnay aktarka caanka ah. Aktarka maanta aan ka hadli doono taariikhda soo gaaban wuxuu noqon doonaa Akshay Kumar. Naanistiisu waa Mark Aki. Waxa uu dhashay 9kii Sebtembar 1967 waxaana ku dhashay magaalada Delhi. dhalasho ahaan waxa uu kasoo jeedaa wadanka Hindiya balse waxa kale oo uu haystaa dhalashada wadanka Canada. Akshay Kumar waxa lagu sifeeyay inuu yahay jilaa, fanaan, soo saare filim, jilaa riwaayadeed, waxyaabo kale oo badan. Waxa uu kusoo dhex jiray jilida aflaamta muddo ka badan 30 sano. Akshay Kumar waxa uu kasoo muuqday in ka badan 100 filim waxaana uu ku guuleystay abaalmarino badan. Abaalmarinaha uu ku guuleystay waxaa ka mid ah abaalmarinta filimka qaranka Hindiya oo uu ku qaatay filimkiisa Rajasthan. Sidoo kale waxa kale oo uu ku guuleystay 2 abaalmarinood oo ay shirkadda Filmfare 2001 oo ku qaatay filimka Garam Masala. Sidoo kale jaamacadda Windsor ee wadanka Canada ayaa siisay Akshay Kumar shahaado sharaf uu ku mutaystay siyaabihii uu uga soo muuqday shaleemooyinka Hindiya. 2009 waxaa dowladda Hindiya sidoo kale ay siisay Akshay Kumar bilad. Akshay Kumar waxa uu haystaa 10 filim oo hate films ama filimaanta ugu khatarsan ah loo aqoonsaday. Markii uu bilaabay Akshay Kumar jilitaanka aflaamta 90-meeyadii waxa uu kusoo jiray aflaamta action aanay samayn karin aktarada caanka ee kale, taasi oo sababtay in loo aqoonsado inuu yahay jigajaanka Hindiya. Akshay Kumar 2009 waxa uu aasaasay shirkadda Hariom Entertainment. Akshay Kumar sidan hore u soo sheegnay waxa uu kasoo muuqday in ka badan 100 filim. Bal waxaan soo qaadan doonaa aflaamta ugu khatarsan ama ugu xiisaha badan ee dadku xiiseeyeen inta badan ee Akshay Kumar soo metelay. Aflaamta inta badan ay xiiseeyeen dadku waxaa ka mid ahaa filimkii la oran jiray Master and Mistress Khilaadi oo uu ku metelay magaca Raja. Sidoo kale 1997 waxa uu kasoo muuqday filimka inta badan ay xiiseeyaan dadku ee Daldubaagalhay kaasoo ay wada jireen Shah Rukh Khan iyo Mandori oo isla dabayaaqada filimkaasi uu kasoo muuqanay Raj. Sidoo kale waxa uu kasoo muuqday 1999 filimkii la oran jiray International Khilaadi oo uu ku metelay magaca Devaraj. 2003 sidoo kale waxa uu keenay ama uu kasoo muuqday filimkii la oran jiray Police Force oo uu ku metelay magaca Vijay Singhal. 2011 waxa uu keenay filimka caanka ee Houseful 2 oo uu ku metelay magaca Sunny Puri. sidoo kale waxaa la ilmaami karin filimkii uu keenay 2013 ee Boss kaasoo uu ku metelay Boss Shastri. kale 2013 waxa uu keenay Holiday ku metelay Virat Bakshi. sidoo kale filimkan hore soo sheegnay Houseful 2 ayaa waxa uu keenay Houseful 3 ayaa uu keenay 2015 oo isla uu magaca hore ku metelay magaca Sandi. 2020 oo ah sanadkii imika inaga dhamaaday waxa uu keenay filimka Sooryan Fanshi oo uu la metelayo ninka u dhaxdo Kajal ee Ajay Devgan. Akshay Kumar waxa uu guursaday 2001 gabadhii inta badan ay xiriir kala haayeen ee Twinkle Khana waxaana uu dhalay 2 ciyaal. dhaqaale ahaan Akshay Kumar waxa uu haystaa lacag gaaraysa 273 milyan. barnaamijkeena ku saabsan aktarka caanka ee maanta halkaas inuu joogo waa inoo iyo 7 dambe oo ka soo qaadan doono insha Allah aktar kale oo caan ah.